ka waran qof dila ah haddii aad garab siido ku qanacdo waxyaabaha uu sameynayo heer raalli aad kaga noqoto in xubnaha qoyskaaga uu dilo boolisku marka qofkaasiita ay qabtaan waraysina ay ka qaadaan uu sheego 5 qof in uu doonayo in uu dilo liiska dhimashadana ay ugu diiwaan gashanayeen 2 qof uu dilay boolisku marka ay soo qabteen uu doonayo in inta kalena uu dhammaystiro qofka afaraad uu doonayo in uu dilana adiga aad tahay haddii warbixintaasiiti booliska ay kula wadaagaan sidee dareenkaaga isku bedeli lahaa shucuurtaada ay noqon lahayd qisadanayti la yaab ka leh muuqaalkanayti aan doonayna inaan ku faaqindo balse intaan gudagelin muuqaalka mar kale wax ka codsanayn muuqaalkanayti aan like garayso siina share garayso haddii aad ka mid yahin bahweynta nagu xiran in nagu soo biirto waad ku maasatay waqti ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta qisadani waxay ka dhacday magaalo lagu magacaabo Jabalbuur kana tirsan magaalooyinka waddanka City India canaalka City ku nool qoys ka kooban aabba 52 sano jira gabar 16 sano jirta iyo wiil sidoo kale 8 jir ah waxaana qoyskani noloshoodu iska ahayd mid iska dhexdhexaad ah qisadani waxay dhacday bishii 3aad 2024 qoyskani hooyadood waxa ay ahayd mid geeriyoota sababta cudur xagga City wadnaha ka asiibay aabahana waxa uu noqday mid mas'uuliyadaniiti ku kaliyooba in caruurtiisa guriga uu ku ogaado sidoo kalena banaanka marka uu kaga soo shaqeeyo isagoona aabahani ka shaqeynay goob tareenada laga raaco saacado badan halka City uu ka shaqeyn jiray si dakhli wanaagsan marka uu helo caruurtiisana noloshooda ugu kafeeyo guriga maadaama inta badan ay wadi joogaan gabadhaniiti iyo walaalkeed ka yar waxa dhacday in gabadhaniiti xiriir ay la yeelato wiil dhalinyaro ah oo magaaladoodii marka kula sugnay xiriirkoodan waxa uu bilowday sanadii 2023 aabuhu xiriirkaniiti waa uu ogaaday waxaana markaas dhacday in uu gebi ahaanba u muujiyay gabadhiisa iyo wiilka xiriirka kala dhaxeeyaba isagoo labadooda mid uu sheegayo in marka uusan ku qanacsanin xiriirkaniiti maadaama uu dhaliilayay wiilkan dhalinyarada xiriirka la leh xilligaasii maadaama 2023 uu jiray 19 sano gabadhiisuna 15 sano ay jirta aabahanayt gabadhiisa waxa uu istusay aabahan in mas'uuliyad uusan qaadi karin wiilkaasii dhalinyarada ah in gabadhiisa nolol wanaagsan maadaama uu la doonayana ma uusan u door bidin in wiilkaasii xiriir dambe ay la sii yeelato dhowr mar ay isla hadleen aabahanayt iyo wiilkan dhalinyarada xiriirka gabadha la lahaa ee isla gaartaba arintu in aabaha saldhiga markaasii uu ka dacweeyay wiilkanayt dhalinyarada ah xilligaasii waxa saldhiga magaalada City Jabalbuur maamulayay gabar waxaana aabahanayt uu horgeeyay cadeymanka booliska isagoona markaa u sheegay in qayaati uu ka taagan yahay wiilkanayt dhalinyarada ah doonayeen in gabadhiisa markaasii looga reebo boolisku waxa ay soo xireen bishii 9aad 2023 wiilkanayt dhalinyarada ah iyagoona markaasii u sheegayo in gabi ahaanba aysan dooneenin oo dacwana markaa looga soo yahay in xiriirkanayt marka uu sii socdo wiilku waa uu ka dhaga adeegay in xiriirka halkaasii uu ku joojiyo booliskuna waa ay xireen waqtiyo markaasii xirnaa aabuhu waxa markaasii uu sameeyay si xiriirkanayt gabi ahaanba gabadhiisa uu kaga saaro in magaalo kale markaasii uu dirsi nolosheeda halkaasii ay kaga sii wadato wiilkan dhalinyarada ah waa la soo daayay waxaana dad uu u qaaday ilaa iyo dhowr qof oo uu ku tuhmay in xiriirkanayt ay doonayeen inay burburiyaan waxaana dhowrkaasii qof marka ay kala ahaayeen aabaha gabadhanayt dhalay sidoo kale marka adeerkeed aabaha qof saaxiib la ahaa iyo sidoo kale isbatoorada booliska saldhiga lagu xiray heysatay afartaasii qof dhimashiyo markaasii kaga diiwaan gashtay sidoo kalena waa uu ku darsaday qof shanaad iyo markaa ka dhigtay gabadhanayt xiriirka kala dhaxeeyay shantaasii qof dhimashiyo markaasii ugu diiwaan gashanayeen muddo bilooyin ah arintu waa iska deganeed xiriirkanaytna waxa uu noqday mid gebi ahaanba istaaga maadaama wiilkii iyo gabadhuna la kala fogeeyay laakiin nasiib wanaag bishii 3aad 2024 waxaa dib ugu soo laabatay magaalada gabadhanayt iyadoo halkaasii doonaysay in ay imtixaanaad ku gasho waqtina marka ay ku sugnaanaysay waxaa dib isku arkay wiilkii dhalinyarada ah iyo gabadhanayt iyagoona xiriirkoodii mar kale isla qorsheeyay in dib markaasii uu bilaabaan wiilku maadaama uu cugdadeysnaay waxa markan dambe uu la jiray xiriir isagoo daacad isaga dhigaya gabadha waxaana uu heer uu la gaaray gabadhanayt uu ku qanciyo in aabaheed uusan la dooneynin in xiriirkanayt uu sii socdo halka xiriirkoodu uu ku guuleysan karo kaliya marka ay tahay in aabaheed uu dilo iyo markaasii ku qanciyay waa uu ka caqli badiyay hala dhahe waxa dhacday bishii 3aad 2024 taariikhdu markii marisay 15 habeenkaasii soo galeysay wiilkanayt dhalinyarada ah waxa uu soo go'aansaday
qorshahaniti in markaasiti uu fuliyo habeenkaasiti dhowr mar uu guriga ku hor laabtay aana dhismaha qaybta apartmentiga gabadhaniti ay deganaayeen dhismahaasiti ku kor xirnaay kaamiro waxaan kaamiradaasiti dhowr mar ay soo qabatay wiilkaniti dhalinyarada ah oo dhismaha hortiisa ku laalaabanaya abbaaro waqti dambana habeenkii halkaasiti ku gaaray wiilkaniti dhalinyarada ah waxaa guriga markaasiti u soo gudbay abbaaro waqti marka lagu qiyaasay qadar ku dhow 9 saac oo habeennimo isagoona guriga marka uu yimid dagaal ku qaaday oo maadaama gabadhuna markaasiti ay la ogeed waxa uu soo qaatay bir aabaheedii madaxa dhowr mar markaa kala dhacay sidoo kale waxa uu dilayna wiilkaniti dhalinyarada ah gabadhaniti walaalkeed oo dhowr mar isagana markaa madaxa bir uu kala dhacay waxaan meydadka uu kala dhigay aabaha in jikada meydkiisa uu dhigay waxaan uu sameeyay sidoo kale wiilka yar ee qoyskaniti ee gabadhaniti ka yarayna meydkiisa waxa markaa meydkaasiti uu dhex dhigay dhankaasiti iyo fanijeerka halkaasiti ay wada joogeen wiilkaniti dhalinyarada iyo gabadhanna way ku qanacsanayd waxyaabaha qoyskeeda lagu sameeyay in aabaheedna la dilay walaalkeed ka yarna la dilay iyadana laga dhaadhicinayo in la jecel yahay naftana la doonayo in lala qaybsado raaliye markaasiti ku ahay waqtiga halkaasiti ku wada sugnaadeen oo intii subaxnimada ka dhineed iyagoo halkaasitina ku quraacday waxaana inta aysan bixin ka hor ay isla qorsheeyeen in gabadhu cod markaasiti u duubto qof kamid ah ehelka iyadoo u sheegaysa in cod naxdin oo kale markaasiti ugu duubto dhaheedana aabbo waa la dilay sidoo kalena walaalkayga waa la dilay iyo badbaadiya codka waa ay duubtay qof kamid ah qaraabadeedii ay markaasiti u dirtay qaabka iyo sida ay ku bixi karaanna waa isla qoondeeyeen wiilkaniti gabadhaniti iyadoona markaa qaabka ay ku bixi karaan ay noqoto in wiilku marka hore uu hormaro mootona uu qaato dhismaha meel ka fogna xoogaa markaa uu sii istaago gabadhuna aayar ay kaga soo daba baxday iyadoo wax cabsiyaysan ka muuqanin oo sidaasiti dhanka mootada ay aaday jihada iyo markaa la aaday oo kaamiradu sidaasiti markaa soo qabanaysay qaraabada maadaama codka la wadaagay waxa dhacday in si halhaleel ah gurigay ku soo aadaan qoyskaniti ku noolaan dhibaatada ay ku dhacday albaabkii markay yimaadeen guriga aad u gargaraaceen iyagoo ku dhawaaqaya gabadha magaceeda codka u soo duubtay waxa qayladaasiti ku soo baxayna deriska iyagoo isweydiinaya xaaladda waxa halkaniti ka taagan waxa ay derisku weydiiyeen oo ay ku dhaheen dadkaniti albaabka gargaraaca ee qaraabada ah maxaa idinku dhacay sidee wax u jiraan maadaama halkaasiti wax dhawaaq ama dhibaato deriska aysan ka maqlin hore aysan ugu ogeyn qaraabadu waxa ay markaa u sheegeen in gabadha guriga markaa cod ay u soo duubtay iyadoo dhahaysa aabbo waa la dilay sidoo kalena walaalkayga waa la dilay iyo badbaadiya cod naxdin lana markaa ugu soo duubtay albaabkana aad marka loo gargaraaco la furi waayey waxa dhacday in booliska la wargeliyay arrintaniti booliskuna marka ay yimaadeen waxa ay sameeyeen in albaabka ay jibiyaan si guriga baaritaan ay ugu soo sameeyaan booliska baaritaanka guriga ay ugu sameynayeen waxa ugu soo dhax baxday in laba meyd ay ugu tagaan aabahii iyo cunugii yaraay ee 8 jirka ee qoyska in gebi ahaanba la dilay waxaana meydadkooda la kala dhigay aabaha dhankaasiti jikada yaa meydkiisa la dhigay sidoo kalena wiilka waxaa la dhex dhigay qaybta siti finijeerka booliska baaritaan ay u direen in sababta qaabka loo dilay ay ogaadaan shaybaar ay u direen waxaana caddaynta shaybaarku ay noqotay in loo sheego in meydkaniti saacado ka hor isla maalinkaasiti markaa la dilay oo waqtiga waxaa markaa lagu qiyaasay la dilay 10 saac oo habeennimo oo boolisku sidaasiti caddaynta baaritaanka dhimashada ugu soo baxday waxaana boolisku guriga waxyaabaha kale markaa ay ka ogaadeen waxa ay tahay in subaxnimadaasiti raashin guriga lagu karsaday oo qof guriga markaasiti uu joogay waxaana ay sameeyeen si baaritaankooda ay aad ugu sii xoojiyaan in kaamiradaha baaritaanna markaasiti ay ku sameeyaan aana baaritaanka kaamirada ay u soo qabatay nin dhalinyaro ah oo isla subaxnimadaasiti abaara 3 saac guriga markaa dhismaha ka sii baxaya sidoo kale waqti yar kadib waxa ay arkeen gabar sidoo kale guriga markaasiti ka sii baxaysa qaraabadu maadaama ay la socdeen booliska baaritaanada ay sameynayeenna waxa markaa la wadaagay cadeymankii kaamirada ay dhaheen gabadha adinku miyaa markaa la dhahay gabadhaniti gabadhiini miyaa qaraabadu waxa ay ku jawaabeen haa waa gabadhiin waan garanaynaa gabadhiin waay booliskuna waxa markaa ay xaqiiqsadeen in gabadhu codka ay u soo duubtay ee naxdinta qof kamid ah qaraabada ay u soo dirtay in gebi ahaanba been uu ahaa oo iyadoo markaasiti qof nool ay tahay wax dhibana markaa aysan ka muuqanin qofka dhalinyarada ee la tuhunsan yahayna boolisku waxa markaa ay sii sameeyeen dhankiisana in xaafadda markaa masawirkiisa ay weydiiyaan waxaana loo sheegay qof kamid ah dadka xaafaddu markaa inuu kamid yahay oo dhalinyarada xaafadda
uu ka mid ahaa wiilkaniti dhalinyarada ayaa loo tilmaamay wiilka iyo gabadhu waxa markaasiti ay sameeyeen si marin habaabin booliska markaasiti ugu sameeyaan in dhankaasiti train stationka ay aadaan oo kaamirada halkaasiti marka la duubayna waxa markaasiti ay soo sheegeenba oo kaamiradaha laga arkay in dhankaasiti train stationka marka ay tageen boolisku meelaha cadeymanka ay ka tuumi kareen oo idil kaamiradahi marka magaalada ku xirnaa baaritaano ay ugu wada dhaqaaqeen waxa marka jirtay in gabadhaniti iyo wiilkan dhalinyarada ah goobtaasiti train stationka marka ay tageen saacado in halkaasiti marka ay ku sugnaayeen dad laba albaab ka kala baxay marka noqdeen si boolisku marka ay u qiyaamaan ayaguna dib isaga soo midoobay oo halka safarkooda ka sii watay waxaana ay aadeen goob markaasiti baska laga raaco si magaalo kale marka ay u aadaan waxa marka boolisku marka goobta ay tageenna loo sheegay in qof markaasiti dadkaniti tikitka ay ka jarteen waxaana sidoo kale marka dhacday in warbixinta boolisku baaritaanada intii ku hayeen ay ogaadeen in gabadhaniti iyo wiilkaniti dhalinyarada ah dhowr bas oo kala duwan ilaa iyo 3 bas magaalada markay u socdeen ay u raaceen oo bas markay ay raacaanba inta meesha aysan la teginba in ay ka deganayeen tikit kalena ay jiranayeen bas kalena sidaasiti markay ku raacayeen oo 3 bas iyo magaalada marka ay doonayeen inay ku tageen halka magaalada marka ay doonayeen ay tageen boolisku halka maadaama baaritaankoodu uu soo galay waxa dhacday magaaladaasiti kale in booliskana sidoo kale lagu diiwaan geliyay oo loo sheegay in baaritaano markaasiti ku sameeyaan si loo soo helo wiilkaniti dhalinyarada iyo gabadhaniti magaalada kale waxa dhacday in baaritaan xoogan booliska kale ay ka sii sameeyaan magaaladaasiti si gacanta loogu soo dhigo wiilkan iyo gabadhaniti dhibaatada lagu tuhmay in ay soo geysteen waxaana dhacday in masawiraantooda magaalada lagu qaybiyo sidoo kalena dadka loo sheego in aad loo doonaa la baadi goobayo labadaniti qof wiilkan iyo gabadhan isma dhihin waa la idin og yahay oo kale waxaana magaalada ay ku sii sugnaadeen waqti ilaa laga soo gaaro bishii 5aad 2024 waxa dhacday habeen ka mid ah in isbitaal markaasiti ay u baahdaan taariikhdu markii ay mareysay habeenka 27ka bishii 5aad 2024 ay soo galeysay waxa dhacday in isbitaal ay tagaan goob xarun caafimaad ah halkaasiti dadka ku sugnaa waxa jirtay dad ka shakiyay oo wiilkaniti masawirkiisa aqoonsaday ayaguna markaa weydiinayo magaciisa si ay u sii xaqiiqsadaan maadaama su'aalaha ay ku badbateen wiilkaniti dhalinyarada ah waa uu ka shakiyay waxa uu isdhahay dadkaniti waxbay maagan yihiin oo kale waxaana halkaasiti uu kaga dhuultay gabadha isagoo markaa dhahaya meel halkaniti yaa ka soo laabanaya waa idiin soo laabanaya sidaasiti markaa ku baxsaday dadku waxa ay sii celiyeen gabadha waxaana markaa u waceen booliska iyagoo markaa u sheegaya oo dhahaya gabadhii aan doonaysiin aad raadinaysiin boolisow gabadhaniti inay tahanayaan u maleynayna ee kala xaqiiqsado imaala booliskuna marka ay yimaadeen goobta gacantana gabadhaniti ay ku dhigaan waxa ay xaqiiqsadeen in gabadhaniti gabadhii ay doonayeen ay tahay sidoo kalena wiilka maadaama gabadha la qabtay waxa dhacday in magaaladaasiti tuhunka uu sii xoogaysto booliskuna baaritaanadooda ay sii xoojiyaan gabadha waxa dhacday in magaaladii koodii hore ay kasoo tagtay loo soo wareejiyay kiiskeeda si halkaasiti booliska baaritaanadooda ay kaga sii wataan waxaana dhacday in ugu dambeyn magaalada dhibaatada marka ay ka geysteen uu dib ugu soo laabto wiilkii isagoo saldhigga booliskana markaa cagihiisa ku tegay oo boolisku marka ay qabteen wiilkaniti waxa ay ku dhaheen adigoo dhibaatadaniti idin geystay maxay tahay sababta cagaaga aad isugu keentay waxa uu dhahay gabadha maadaama adigu aad qabateen anigu waxa markaa soo go'aansaday in aan isa soo dhiibo waxaana markaa uu sheegay sababta uu dhibaatooyinka markaasiti u geystay boolisku waraysiiyay markaasiti ka qaadeen iyagoo weydiinaya waxa markaasiti ka dambeeya sababta falalkaniti idil u geystay waxa wiilkaniti dhalinyarada ah booliska marka uu ku dhahay sababta aan u dilay gabadhaniti aabaheed waxa ay ahayd in markaas sababtiisa xabsi aan u galay isagoo doonaya in gabadhiisu iga reebto sababta cuqdadaasiti aan ka qaaday in la ihirana waxa ay dhashay in ilaa iyo 5 qof diiwaan gelin dhimasho markaasiti aan sameeyo waxa uu ku sheegay qofka koowaad uu doonay inuu dilay in ay ahayd aabaheed sidoo kale adeerkeed aabaheed qof saaxiib la ah iyada iyo sidoo kale gabadha booliiska ee saldhigga markii hore lagu xiray maamuleysay uu dhahay dadkaasiti il diiwaan gelin dhimashiya marka uu saxiixay haatan waxa uu dhahay 2 qof kaliya markaasiti dilay gabadhaniti aabaheed walaalkeed ma doonin in aan dilu dhahay laakiin markii aabbo aan markaasiti dilay oo wiilkaniti qeyliyay
sidaasitiyaa isagana markaa aan ku dilay laakiin liiska dhimashadii nagu diiwaan gashanan yuu dhaha gabadhanayti walaalkeed oo qofka markaasiti aan doonayo u socday waxa ay ahayd gabadhanayti aabaheed oo aan dilay haddii aabba aan kasoo dhamaadan waxyaaba aan sii qorsheenaya waxa ay ahayd in dadkaasiti kalena aan sii dilo gabadhanaytina waxa ay ii ahayd uu dhaha gabadhan xiriirka kala dhexeeya qofka afaraad ee aan doonayo in aan dilo iyadaiyo markaasiti ahayd arrintu waxa ay noqotay mid fajac ah gabadhanayti iyadoo garab ku siinaysa oo ku qanacdaba jacaylka indha la'aanta ee beenta uu tusaya ninkaniti heer uu kaga dhaadhiciyay in xubnaha qoyskeeda uu dilo aabaheed iyo walaalkeed uu dilay sidoo kalena markaa ay la joogto ay ku qanacsaneedu ay la baxsatay xitaa ninkan bahalnimadiisa waxa afcad uu ku sheegtay in gabadhanayti markaa iyadana uu doonay in uu dilo waxaana ay gabadhan la dhihi karaa mid nasiib badan oo ku badbaaday in boolisku gacanta ay ku soo dhigaan ee ugu dambeyn ninkaniti waa uu dili lahaa waxaa dhacday in kiiskanitina markaa loo gudbiyo maxkamad si ninkaniti dhalinyarada ah uu u noqdo kiiskiisa mid markaa lagu xukumo